السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. علم وناكسن جنة جليل سود هذا أنا كي عبد الله أقول هاي هي عندها عن فيديو صعب دوغن شغل كي أو إسكابنا أوي حتى قلتي لا تريد الروم ويب سايت آه، واسكتشو جني صوتا أنا هو مشغول إسكنا هذا أوي بس waxaan sameyn jiray oo maxaa la yiraahdaa qof walba oo koorsadii hore ee elite wave-ka tilmaamidka ahayd qaatay oo markaas mentorship u baahdo unba u soo geli jiray inta waxbarashadii waxaan rabay inaan iska joojiyo laakiin dadkii ay iga dhamaa waayeen qof kasta ustaadow koorsadii hore waa qaatay laakiin waxaan u baahanahay inaan more advanced waxaan usii dhex galo wifiska usoo leeyahay marka waa idinka dhex bixi waayey anyway videogan maanta marka waxaan uga hadli doonaa insha allah trading system oo aan mar dhow inoo sameeyey oo ilaahay waafajiyey dabcan waa checklisti ka hor inta trade-ka aan la qaadanin oo u baahan yahay qof kasta qaab nooda anigoo iskaga haystay oo trade markaa qaadanayo dadkana waa usii jiray balse waxaan ku aasaday inaan wixii online ka dhigo oo maxaa la yiraahdaa uu qof kasta isticmaali karo oo wixii marka uu leeyihiin hoogaa qofkii inuu ka cajisaa laga yaabaa balse markay wixii website ku jiraan banaanka yaalaan oo leeyihiin qofka wuu soo doonanayaa wixii si automatic oo trade ugu saxara inay saxan yihiin inay qaldan yihiin trade automatic saa u kala sheegaya marka traderiska badankood suuqan waxay ku lumayaan lacaga badan haddii ay noqon lahayd real account iyo bottom finba sababtoo ah waxay isku dayaan inay saadaaliyaan suuqa laakiin runta dhabta ah waa tanaa tradingku ma ahan inaad saadaaliso ee waa inaad reactive garayso waxaana kaa saacidaya midaas inaad leedahay system cad anigaba sidaas waan ahaa jiray ilaa aan dhisay system rule based on ah oo iga dhigay inaan noqdo qof trader guulaystay discipline leh dabcan sidaan hore idin kugu sheegay systemkan aniga nood ahaana u haystaa qof kasta oo mentorship ka qaatana waan siiyaa oo buuga dhanaa jiro ay ku qoran yihiin waxyaabahaas laakiin buugii qofka markuu uu fahmo markasta buuga dib ugu laaban karo oo ma ka jeegaray karo checklistii qaar ka hoos baxaya marka system qofku inuu haysto ayaa aad ugu fiican waana the reason aan maanta videogan u doodayo inaan idinku fahansiiyo insha allah dadka badankood waxay sameeyaan qaladaad isku mid ah waxay galaan trade aysan qorshaysan waxay qaataan trade badan halkii maalin markii laga yaabo maalintii inuu 5 trade 10 trade iska furo oo emotionkiisa oo maxaa la iskaga furo oo markaas aysan jirin wax cad oo suuq u sameeyay waxay isku dayaan inay raacaan si dadka wave trade risk move kasto suuqa sameeyay oo kulliya wave faraan qaadana wave trade aan ka faa'iideysanaa nasiinadii wave w aan qaadanaa mar kulliya falaada dhamaada waan qaadanaa move kasto wuxuu rabaa inuu qaato suuqana sidaas ma aha وفي لا تريد جراي يقوى أنا تريد جرين أيام جرا مركب قدام بس قف كاس مركب تريد كيسو هو إسكان غنا واحد رندم أو أسقاط جنبلين أو كلا لكن مركب ليه سيستم عاد وحول بو إسبدل يعني سيستم كان عن استعمال إنه فكسر لسني هاي سدح وهي عبود مهمة مثل كواد وويفسكي قبل سمعت سوقي midka labaad waa timingkii midka saddexaadna waa ishibilig ma trade gareeyo wax kasta oo aan arko kaliya waxaan qaataa sadaqka buuxiya shuruudahan adag mid kamid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee aan bartay intii aan trade-ka ku jiray ayaa ah system la'aan inuusan jirin trade no system no trade no shibri no profit si aan u hubiyo kaliya inaan qaato trade tayo leh waxaan isticmaalaa checklistigan meesha inooga muuqda oo hadda aan ka dhigay qaab online ah halka markii hore uu ahaa offline haddii aan idin tusiyo marka systemka qaabka uu shaqeynayo dabcan website markaad soo gashid illegal adjust qaybta aan trading tools ka imaan doontaa waxaa ka dooran doontaa midkan ugu koreeya oo ah elite wave timing with price mastery trading checklist waxaa kusoo bixi doona sidaan qodobka ugu horeeya waa daarashinka suuqa ku inaad soo heshaa waaye suuqaan ma bullish mise waa bearish lacagtii aad dooran doontaa euro USD oo kale haddaan dooranno price-kaaga waa halkee marka suuqa
directionka ma weekly ka soo heshay ma daily ma 4 hour weekly aan dhahno weekly bearish continuation oo kale wuu diidaya marka systemka asaga automatic ku qabanaya muujida directionka bullish aan soo doortay halkaan waxaan isku dayayaa inaan bearish continuation doorto aan ku sheego ku leeyahay waxaas ma jiraan isma waafaqsana waxaan search ka aqri direction is match waana baxna marka aan bearish halkaan soo dooranaa si aan u saxno weekly-gana markaas bearish continuation wuu naga aqbalaya damar weekly soo doortay direction kale kuwaan u baahanay hal direction kaliya waa inaad price-kaaga waa hal mid inaad ka soo heshaa wave context-ga tusaale wave 2 oo kale aan doortay oo dhihi doonaa wave rara meeshan jira isagaa ku saxay horta systemkan waxaa isticmaali doona qofkii koorsadii fahmay buug koorsada haysta mentorshipka soo qaatay ula jeedaa waxaanu fahmi doonaa movies kala trade gareenayo saxda waveska halkaasi qoran yihiin marka hadda wave 4 continuation waa midka aan u baahanahay systemka isagaa ku qabanayo waxay aqaldeysid time iyo sessionka timeka London iyo New York waay tusaale hadda daan baxo 4 hour-kii aan tago maxaa la yiraahdaa buyskii 4 hour aan kasoo dhiganaa fiiri 4 hour waxaa soo doortay bearish waxaa soo doortay continuation 4 hour continuation waaye trade-ka markaa isku dayaya inaan qaato New York aan tago systemka ay qabado xulii doonaa New York loogu talagalay 4 hour marka 4 hour buyska xilliyo loogu talagalay oo la trade gareeyo waxaas dhan qofku baran doonaa move kasta la iska maraa wax kasta waqti cayiman ay leeyihiin that's why koorsada aan idin leeyahay tii hore way ka adfaysantaa markaan timena la socda aan sideedii ugu ceshta marka buyskayga hore faradaan u baxo weekly iyo ahay weekly bearish continuation markaan London aan fursadii helay previous cycle-kayga wuxuu ahay waxaa ii dhammaaday 5 leeyahay ma ogola way 5 continuation asaga automatic ku qabanaya isma qaldi kartid waxaa leeyahay marka wave C combinated wave iska hore dhaqaaqay war sidaas u ahay maadaama continuation aan trade gareer rabo dooranaya marka entry model-kayga moveonka waa helay retracement waa la siiyey confirmation kan waa helay divergence waa helay waxaana rantiga fuulaysa ki aad buuxisid maxaa la yiraahdaa trade execution-kii 1 to 1 ilaa maxaa la yiraahdaa 2% ka badan risk ma gelinayo hal trade aan qaadanaya screenshot soo gulay ku leeyahay hadda aad isku day inaad mootiyo screenshot-kii wuxuu leeyahay ma waxba ka dhiman screenshot soo geli hadda waa bixina marka screenshot aan meelaha soo qaadanayna stumble ah trade-kan oo kale hadda euro USD trade-ka group soo dhigay oo maxaa la yiraahdaa trade-kan kale waa qaadanay rules-kan oo dhan uu waafaqay isaga waxa hadda rules-kan meeshaan aan gelinayo rules-kan uu waafaqay fursada marka qaadanaynay kuwa waxaan u fiirinay waxaan hadda soo doortay ayaan u fiirinay calculate score leeyahay marka scorekiisu waa 100% waa the best trade of the week don't miss ugu soo qoraa daw maanta marka waa qabsanaysaa tandiya leedahay waqtaas koobi ku noqonaya telegramka uu ku geenaa groupka rabtid ama qofka rabtida past u leedahay automatic qofkaas sidii xogta ku haysta marka signal automatic u diyaarsan waa fahanteen alright systemka horta faafahintiisa waa intaas waxaa la yiraahdaa qaabka loo isticmaali doono sidaas waaye qof kasta markaad trade soo heshid oo qaabkan oo kale hadda sawirkan kale u soo heshid xogtaas buuxbuuxi doontaa adoo aqoonin marka qaabka trade-kan ku soo heshid iyo move-ka trade gareynaysid iyo move-ka ka horeeyay iyo maxaa la yiraahdaa entry model markaas isticmaalaysid waxaasoo dhan ee timing-kii ma isticmaali kartid that's why systemkan uu u gaar yahay marka dadka mentorship dhameeyeen si free u heli karaan sida aragtaan systemkan ma aha wax magic ah waa system cad oo wata discipline-kiisa wax kasta asagaa kuu sixi doona marka iska orod maa trade kasta iska qaadan doonta haddii aad rabtid inaad si qoto dheer leh u barato systemkan aad isticmaaleyno marka hore qofka waa inuu maxaa la yiraahdaa qaybtii mentorshipkii maxaa la yiraahdaa anaga koorsadii hore ileed wifka oo 2020 uu soo qaataa kadibna uu qaataa qaybtan kale oo 1 to 1 ka ah sida ujeedaan dhammaan indicators meeshan ku jira marka systemkan kan 1 to 1 ka indicator jira aniga sameeyay oo wataan iyo systemkan hadda taamba iyo buugaag waxaa soo qof free ku heli doonaa marka videogan marka ugu talagala inaa qaab xayeysiis ah ama inaan idinku dhaho koorsada iibsada iyo sidaan yeela bas waxaa rabaa kaliya inaan idin fahansiiyo systemka
iyo qaabka loo isticmaalayo iyo dadka u baahan inay isticmaalaan in loogu talagalay dad kasta looguma talagelin. laakiin sidoo kale waxaan rabaa inaan idiin sheego xaqiiqda dhabta ah ee aan la iska indhatiri karin. dunidan horta wax free ah ma jiraan. aniga shaqsi ahaan $10 ayaan ku bixiyey si aan trading u barto heerkan aan kusoo gaaro. waxaan soo maray courses badan, websiteyo kala duwan iyo waqti badan oo aan ku lumiyey, isku day fara badan iyo eroryo badan, qaladaad badan aan sameeyey iyo waxaas inaan saxo. mana jiro sidaan filaayo maxaa la yidhaahdaa course-eed wave ku saabsan oo aan soo qaadanin. waxaan waqti badan iga galay maadaama waxaan kariir ay ii yihiin oo aan rabo inaan meel sare ka gaaro, inaan inta luuqluuqyo maro oo fiidooyin yaryar daawado sidaas kuma noqon karo. marka ilaa ugu dambeyn marka aan waxaas ku keenay waxaasoo cilmi ah oo aan isku keenay oo maxaa la yidhaahdaa oo aan isku soo aadiyey ayaan idinla hor imi. xaqiiqdii marka ani ahaan markayga hore waxaan bilaabayey ama wefiska aan bilaabayey haddii aan heli lahaa qof Soomaali ah oo processkan dhan ii soo maray, cilmiga intaan leegana haayo oo sidaan fudud ii fahamsiinayo, rafaad badan ma mareenba, isma gelaliyeenba. qofkaasna wax walba uu sheegto oo uu rabaan sii lahaa, ma fahantay? balse nasiib daro qofka ugu horreeya ee Soomaaliya ee wefiskan dadka bara aniga ayaa noqday. ilaa 2019 dhigayay meelo kala duwan. qof Soomaali ah maxaa la yidhaahdaa oo barnaamijkan iigu horeeyey bilowgiisii iyo xogtiisa dhabka ah ee ugu dambeynta haya. dadka badankood qaybtaan ay barteen, dad magaalada iska galeen, laakiin xogtaan dadka dad kooban waay aniga aqaano aan ka warqan. ma aha dadka meelaha warwareega ama guruubyada joogjooga ama waxyaabaha dhigdhiga, ma aha dadkaas dad suuqa ka shaqaysta waay. waqti iskaga dhameeyaan gruub iyo sheeko iyo baashaal. idinkana waa soo xaqiijin kartaan warkaas. cilmiga aan idin barayo maanta ma ahan keliya theory, waa isku darka cilmi, khibrad iyo inaan idin fahansiiyo waxa suuqan ka shaqeeya iyo waxaan ka shaqeynin. sistamyo cad sidaa ujeedaan, buugaagtiisa iyo indicatorskiisa way wataan oo aan howl fududeen ugu talagalay. dariska badankood ofiska way ku wareeraan oo dad kooban unbaa ku talagareeya. qaybtana wax kale ma aha, si dhiible ah cid u fahansiiso maysan helin. kabacdina waxay dhahaan wax adag waaye kama bixi karna oo iskaga cararaan. waxaan haddii aysan shaqeynayn, horta aniga ma ku soo jirin intaan sano oo maraa ka carar lahay. suuqan 8 sano ku jiraa, ugu yaraan 6 sano waxaa la yidhaahdaa wax aan way fahan kuma talagelin weligaa isticmaalin. sababtoo ah awooddeedana asagaa iskugu geeyey, focusiga asagaa saaray, wax kale iskuma mashquulin. wefiskana waxaan u imid markii aan ka soo quustay dhammaan istaraatiijiyadaha kale oo aan waayo wax si sax ah u shaqeynaya suuqan oo si clear ah maabka suuqa ii sii karaa. dad badan waxay aaminsan yihiin in wax walba free lagu barto ama lagu baran karo. waa ku baran kartaa balse si fuula ma aha, wax bilaa waa ku baran kartaa. aniga ahaan markaa ma aaminsani in dadku wax si free loo siiyo, sababtoo ah wax kasta oo qiimo leh price ayay leeyihiin. haddii maanta lagu siiyo wax free ah, qiimo fiican ma siinaysid ama ma tixgelinaysid waxaas, oo waa iskaga baashaalaysaa oo dhab serious uma arkaysid. laakiin marka aad waxaan ku bixisid effort iyo maxaa la yidhaahdaa sida time iyo lacag, waad qadarinaysaa, waxaasna waa baranaysaa oo waxaad isku dayi doontaa inaad ka faa'iidaysid. saaxiibaya, waxa aan kaloo rabaa inaan si cad idinkugu sheego, cilmigan aad baranaysaan waa kariir. uu ka qaalisan yahay maado iskuul laga dhigto ama jaamacad laga qaato. tusaale haddii aad eegto jaamacadaha, semester kasta waxaad kusoo bixisaa, tusaale 4 sana soo fadhisay, semester kastana waxaad kusoo bixinaysa intaasoo lacag. laakiin markaad soo dhamaysid, badanaa ma jirto wax shaqo toos ah aad heli doontid ama aad helaysaba. xaqiiqada marka waa tana, dad badan maanta jaamacad bay soo dhameeyeen laakiin shaqo la'aan waaye, meelay iska wareegaan, meelay iska joogaan, wixii ay soo barteenna kuma shaqeeyaan. laakiin cilmigan gaar ahaan sida aan qaabka idin bari doono oo la soo fududeeyey oo isku aadiyey, waxaan system nidaam academic ah laga dhigay, waa skill si toos ah u isticmaali karto suuqa adigoo qofna aadan ka sugin amar markii aan hawsha dhimaysid. laakiin haddii aad si sax ah u barato waxaan oo aad raacdo systemka steps lagu sii doono, waxaad fursad u leedahay inaad naftaada u shaqayso.
qof bani aadam ah oo baahnaa doontid qofka bani aadamka ah baahida ugu badan uu qabo waa financial freedom iyo time freedom labadaasba tradingka oo keliya ayaa ku siin kara si fudud qofka business samaysta waa gaarkaas process dheer oo soo mara qofkaas laakiin tradingka waa uu ka hor fudud yahay business inuu lacag fiican ka sameeyo waqti badan ku qaadanaysa soo baa juhdi badan dad ayaan kaaga xiran yihiin waxa in ganacsiga adag wax ka iibsadaan kaaga xiran yihiin laakiin suuqan kaaga ma xirna in wax laga iibsado iyo inaa maanta yani dad ku soo geli waayaan macaamil ay liwis kaaga ma xirna waa adiga iyo chart stock baa sheekaysanaya buucii aad farshadishin waa qaadanaysa isbuuc waysin waa ka leexanay adoo meesha rabtid joogo oo waqti kugu xirnay oo wadankan iska joogo iska talxiisaya daarad horta trading ma ahan kadrij quick laakiin waa skill haddii aad barato oo aad ku adkaysato waxaad ku dhisi kartaa kariir fiican dakhli dhab ahna waa ka samayn kartaa waxaa idin baraayo ma ahan keliya theory waa system la tijaabiyey experience dhab ah oo suuqa ah iyo hab aad ku fahmi karto marketka si qoto dheer leh dad badan waxay ku qaadataa 5 sano ilaa 10 sano inay gaaraan level fiican dhinaca dhaqaalaha ah iyagoo jaamacado iyo digriyo ka duwan soo qaadanayo ana shahaadooyinka duwan soo qaadanayo laakiin haddii aad haysato system sax ah iyo guidelines sax ah waxaad si degdeg ah u gaari kartaa horumar muuqata meeshan waxaa lasku dhaafo waqtiga waay qofka cilmiga markii aad haysatid qof waxaan kaaga horeeyey oo ku baraya waqtiga uu soo koobnaana stebiska si fudud ku fahmi lahaa marka keliya waxaan juhdi gelisid oo aad u rafaadid badan ku qaadanaysaa maxaa la yiraahdaa inaad wax isku adaadan aad hesho ama system sax aad heshid laakiin waxa lagu soo diyaariyay marka heshid way ka sii fiican tahay laakiin waa qofkii horta sida saxda ah u raacaa nidaamkan qofkii bishii bililna iyo qofkii aan stebiskan ka boodin oo maxaa la yiraahdaa oo si sax waxaan u raacaa haddii aad ka mid noqoto dadkaas natiijooyin ka aad rabto way ku iman doonaan marka go'aanka waa adiga ma rabtaa inaad si ahaato qof si random ah u trade gareeya mise qof la system iyo direction cad u socda inaad noqotaa rabtaa ugu dambeyn waqtiga ayaa ka qaalisan lacagta haddii aad rabto inaad gaarto level sare waxaad u baahan tahay cilmi sax ah system cad iyo inaad naftaada investigayso waxaana waqti kooban ay kaaga baxaan intii sanado meel cidlaa aan jirin kaaga lumi lahaayeen qofka naftiisa u qori waaye lacag oo wax uu ku barto qofkaas horumar ma baro qofka intaan wax bari ku bari lahaa waan sii lahaa cilmi kala dhiman waxaa u dhaanta inaan siiyo cilmi complete ah oo ku shaqaynsan karo si degdeg ah lugooyo baa u arkaa dadka intay dhahaan waxbaa idin baraynaa dadka oo si friya idinku baraynaa kaalaya dadkaasna sanado badan waqtigooda kaga soo lumiya cilmi aan dhammaystirnayn qof ay cilmi sax ah juhdi badanna geliyey si bilaash ah waxba cid kuma siiyo laga yaabaa dad kooban oo markaas si free oo sadaqa ahaan qof inuu ku siiyo laakiin inuu ummad dhan yiraahdo isku kaalay waxbaa idin baray si free waqtigiisana meesha ku lumiyo cilmi complete-na uusan siinin dee qofkaas isaga naftiisa iyo dadkii naftoodaba qalad oo ka gal qofka cilmi saxaya maxaa la yiraahdaa si bilaash cid wax kuma baraayo sababtoo wuxuu og yahay cilmiga uu hayo qiimaha ay ku fadhiyaan marka haddii aad yar u tahay inaad ka gudubto meesha sanado badan taagnayd welcome trainingu maaha inaad noqoto qof saadaaliya mustaqbalka waa inaad noqotaa qof leh system uu ku shaqeeyo haddii aad rabto inaad hesho natiijo dhab ah waa inaad samaysaa wax ka duwan dadka kale oo aadan taagnaanin 5 sano ama 3 sano ee lasoo dhaafay meesha aad taagnayd dadka aan la hadlaayo way is ogyihiin siiba waa dadkii qaateen koorsadii 2020kii balse weli suuqa ku wareersan maxaa yeelay koorsadaas intermediate period wave unbay ahayd laakiin briceka unbaan xooga ku saarayay brickan qofkaas meel fiican oo ka maraya si fiican oo u haysta qof koorsadan soo qaatay wax suuqa u laalaaban ma jiri doonaan laakiin marka qaybtan waxay uga miisan tahay qaybtaas waxaa waaye qaybtan timing ayaa la socda waa qayb advanced ah xilli walba uu impulsiga ama correction ka dhammaanayo saabkan cusub bilaabanayo waxaasoo dhan waad og tahay oo waa la socon doontaa sidoo kale qaybtan waxay leedahay interiyo maxaa la yiraahdaa intraday ah oo maxaa la yiraahdaa
oo toos ah halka taas focuska ay saarayso wingi ah kuwa laakiin suuqan maalinta kala bixisay because hadda waqtigu isbedelay shirkadihii sidii hore ma ahan weegandhigii matalad galay kartida lagu leeyahay trade habeen qaar ma haystaan waxyaabahaas oo marka shirkadahan sida wax u faa'iidaysatay waxa u baahan tahay trade waqti kooban intraday kala baxnaa inaad ka heli kartid oo sniper interest ah step by step qaabka challenge-da u gudbi lahayd meeshan waa lagu fahansiin doonaa ilaa up to 1 million fan traders ayaad gaari kartaa dad badan oo gaaray way jiraan waxaa la yiraahdaa balaakiin qofka processka si sax u raaca system fudud ah waxyaabahan ku baasi kartid akoon ku heli kartid aan lagu bari doonaa insha Allah dad badan way qaateen koorsadan 1 to 1 ka ah suuqa hadda waxay ka sameeyaan lacag ku filan qof koorsadan qaata 3 bilood ilaa 6 bilood marka uu maraayo waa must harto inuu akoon soo baasiyo qof aan akoon baasin ma bajira u malayn dadka koorsooyinkan qaateen qofkii hal sano markuu koorsadan qaata hal sano ka bacdiina waa ugu badnaan qofkaas akoon 300 oo ilaa 1 milyan haduu haysanin waxa waaye waxa uu uusan baran ninkaas wala socota qofkii labadan qayb si sax ah u soo qaata si fiican u soo fahmaa kana soo baxaa markii qofka koorsan si markuu dhameeyo waxa la sii doonaa beeris baaktastina loo diri doonaa beeriskaas inuu baaktaskooda keeno waqti cayiman taalin hal sano la soo dhaafay 6 bilood soo dhaafay inuu keeno xogtoodii tiradii baxeen qof processka soo mara waxaasna soo xaqiijiya oo maxaa la yiraahdaa funding trader noqon waaya lacagtiisa celis waayo ninkaas inaan wax barna ma ahan oo waqtigiisa bilaash ugu dhuman noo socota waqtigiisa ninkaas bilaash baan ugu dhuman lacagtiisana waa la siinaa waa balan waa inshallah aniga maxaa la yiraahdaa garab waxaa idin sii doonaa qof walba oo dadaal la yimaada waliba aan idin rajeynayaa dhammaantiin videogeeni maanta halkaas buu ku egyahay qof walba isbedel diyaar u ah inshallah aan ku sugi doonaa website-keena aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh